kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii gaarka ahaa oo aan diiradda ku saaraynay 4 qodob oo sabab u ah burburka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada maanta ay ku jirto. Waxaynu isla soo gaarnay qodobkii 3aad. Arrinka 3aad ee Soomaalida dhibaatada dhaxashiye ayaa ah kadib markii la saaray madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo ah shakhsi kaligistalis ah isla markaana aan ku wacnayn arrimaha diinta. yaa Soomaalidu waxay go'aansadeen in gabi ahaan isaga iyo dawladdiisaba halka laga saaro. Hase yeeshee ma aynan ku fakirin oo haddii aynu saarno maxaa xiga oo maxaynu ku bedelnaa taa ayada la isma weydiinin. waana sababta 3aad ee Soomaali weyn dhibaatada ilaa maanta ay ku jiraan oo ay la dhibaatoonayaan oo qaarkoodna ay yihiin kuwa qaxooti ah oo dunida daafaheeda kala jooga iyo sidoo kale dalka gudihiisa ku dhibaatoonaya. waxaa sabab u ah in aan la isweydiinin Maxamed Siyaad Barre haddii aan saarno maxaa xiga oo maxaynu ku bedelnaa dalkii oo aan burburin, dalkii oo sharafkiisii leh, Soomaali weyn oo karaamadeedii leh, Soomaali weyn oo laga heebeysto. oo haddaan Maxamed Siyaad Barre kaliya iska saarno maxaan ku bedelanaa si wadajirkii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed una u burburin taa ayada la isma weydiinin. waxa ayna sababtay in Soomaalidii ay ku qaadaan Maxamed Siyaad Barre oo 1991kii gabi ahaan dalka laga saaro. laakiin bariga ayay soo bilaabatay dhibaatada iyo mushkilada ummadda Soomaaliyeed maanta haysata. waxaana ugu wacan in aynan ka fikirin waxa xiga oo aan la isweydiinin oo maxaan habboon inaynu ku bedelno si dalka uu dhibaato u galin oo mashaakil uu u galin la isma weydiinin. Soomaaliland maanta waxay maraysaa cadawgii Soomaaliyeed ee barigii hore ka heebeysan jiray ayna marna dhici karin inay Soomaali iyo ciideeda ku fakaraan maanta inay haminayaan in ciidda Soomaaliya ay kala qaybsadaan. taana waxaa sabab u ah burburkii iyo dhibaatadii ku dhacday ummadda Soomaaliyeed 1991kii oo ay loobeen haddii aynu Maxamed saarno iyo dawladdiisii maxaan ku bedelnaa taayada la isma weydiinin. waana qodobka 3aad ee sababay burburka iyo mushkilada ku dhacday ummadda Soomaaliyeed. qaybta 3aad halka inoo joogto. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.